kulanti wacan oo wanaagsan dadkana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa stuudiyaheena magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka waraysigan soo socda waxa uu si toos ah idinka imanaya oo aad kala socotaan Kalsan TV daawadayaal dad badan oo Soomaaliyeed ayaa rumaysan in Soomaaliya marka laga hadlayo khayraadka ku jira gaar ahaan shidaalka oo kale in aanay jirin haba yaraatee shidaal Soomaaliya maanta lagu sheego oo rajo weyn laga qabo dad kale ayaa iyana aaminsan in shidaal fara badan uu ceegaago dhulka Soomaaliya warbixinaha qaarkood ayaa ku tilmaama waa kuwa caalamka ah in ilaa iyo 110 bilyan oo barmiil ama foosto ay ku jiraan dhulka Soomaalida haddaba su'aalahaasi jawaabtooda ayaan rabaa in isla waraysigan xogtiisa in aad ku heshaan bal waxa shidaalka Soomaaliya ka jira inuu yahay shidaal ku jira oo dhaba iyo inaanu ahayn arrin dhaba ama shidaal aanu ku jirin Soomaaliya waxa stuudiyaheena magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota wadanka Mareykanka martino waa Abubakar Xaaji Maxamuud Mire oo isagu dhinacayga bidix fadhiya waa khabiir ka tirsanaan jiray xafiiskii xogta iyo isgaarsiinta ee shirkadaha faraha badan leh ee Soomaaliya iyagu shidaalka sahminta iyo qodaalkaba markaasi isku dayay Abubakar Xaaji Maxamuud Mire 1978 waxa uu ka shaqeynayay shirkad Kuwait markaasi ka hawlgalaysay oo Halliburton loo yaqaanay oo Mareykan ahayd shirkadaasi oo qaabilsanayd qodista shidaalka 1978 ilaa 1986 ayaa Abubakar waxa uu u gudbay amaba uu markaasi u shaqo tagay wadanka Imaaraadka Carabta magaalada Abu Dhabi waxa uu shaqeynayay markaasi shirkad lagu magacaabo Sabata North Sea Inc oo uu ka hawlgali jiray taasi oo hoos yimaadaan shirkado fara badan oo caalamka shidaal ka qoda markii dambe waxa uu isla sanadkaasi 1986 weeyaane uu u gudbay Abubakar wadanka Soomaaliya waxaana uu markii ugu horeysay uu ka hawlgalay ceelka baar dheere oo xilliga shidaal laga qodayay waxyaalihii uu kala kulmay iyo wixii uu ku soo arkay dhinaca shidaalka dhulka Soomaalida ayaa uu inooga warrami doonaa marka horese Abubakar Xaaji Maxamuud Mire aan ku soo dhaweeyo stuudiyaheena magaalada Minneapolis soo dhawaad Abubakar marka hore على حرارة واد معصن تاعي thank you very much إن يصير فرصة دتن وحي أن كوجا هاي ودن كني إن أن دتك وح كوجا يسيو أنت أنا هاي إن دتك سومال دون أوجادان فرصة ضايعة ياد بقوة مهدينية سؤال شو وحوي ودن كن بترول مكوتشرا مسكو متشرو وكجرا waaye uu ku badan yahay waxaan doonayaa inaan guda gallo oo sida wax ugu jiraan ee dhabta ah aad iga wartid waraysiga gudihiisa laakiin waxaan doonayaa ka bilaabo markii aad ka timid wadamada khaliijka carabta ee aad soo gaadhay Soomaaliya sidaad ii sheegtay 1986 waxaad ka hawlgashay ceelka baar dheere ceelkaas muxuu yahay Abubakar aliyow anigu markii aan wadanka imanayay waxa anigoo u shaqeeyay shirkadda Sabata North Sea waxa i xulxutay shirkadda la yiraahdo Shell oo Soomaaliya ka heshay contract qodis ah dabadeedna anigoo aad u interest gareynaya inaan ogaado waxa dhulkeena ku jira shaqadeydii waan ka tagay Sabata Shell baan soo raacay Shell baa horta i keentay Soomaaliya markii aanu nimina waxaanu bilownay 1987 bishii February qodista ceelka ku yaala 60 kilomitir baar dheere iyo Faafxdhuun dhexdooda haddii kaaga warramo ceelkaas shirkadda qodaysay waxay ahayd Shell Holland Shell oo wadanka Netherlands oo dawladda ah ayaa qodaysay runtii nimanka qodayay qayb kamida xitaa Abu Dhabi aan ku wada shaqeynay
oo markii aanu isu nimi waxaanu iska helnay qaar kale oo kuwii soo kaxaystay mooyaane kuwa kale oo xitaa aan ku arki jiray oil fieldka ceelkaas 1,000 mitir wuxuu ahaa 4,000 oo mitir in la qodo estimationkiisu 900 oo mitir markii aanu maraynay gaas baanu ku dhex dhacnay dabeedna waxay noqotay in safety la galo oo laga kala cararo ilaa la xidho gaasta waayo kambanigu gaas muu doonayna wuxuu doonayay batrool halkii aad batroolka uga geli lahaydeen baa gaas baanu gaas u galay ayaad gaas u gashaan ha batroolkii ma dhowa gaastu abukar ma tan la shitaaye wax lagu karsado natural gaska ha naaska waa gaaska dabiiciga waa gaaska dabiiciga waaye inta kadib maxaa dhacay waxa dhacay ceelkii waanu qodnay waa dhaafnay gaastii way xidheen waa la xidhay waxaa dhacday ceelkii wax badan baanu kala kulannay oo dhib ah 3,920 markaan 55 markaan maraynay mitir oo 45 mitir noo harsan tahay yaa waxaa isku dhacay wasiirkii macdanta iyo biyaha Soomaaliya ee xilligaa iyo wakiilkii u joogay kambaniga Shell maxay isugu dhaceen kullayba waxaan dawladdu la ogeyn wasiirka ayuu ula tegay shirkadda shirkadduna waxay ahayd shirkad dawladeed ma ahayn kambani shirkadaha dawladahu leeyihiin waa conservative oo qodista wax aan ahayn kuma soo tala galaan ceelkaa inay ku baxaan marka halkaasay ka bariiqatay warkaagu si uu taariikh ugu noqdo dadka Soomaaliyeed ee jiilasha soo socda Abukarow naam markaad cadeysid maadaama ay tahay waqti la soo dhaafay naam taariikhdu waa lama horaan waxay noqon doontaa wax meel yaalo oo dib loo eego naam wasiirka waxa joogta xafiiska xogta iyo isgaarsiinta adigu waa gartay wasiirka iyo maxay isku qabteen kambanigu waxay isku qabteen commission buu weydiistay kambaniga waaye haddii kale operation ku socon maayo ku yiri ama waa in lacag la siiyaa ama shidaalka la soo saari maayo ama waa in lacag la siiyaa waaye haddii kale operation kaad ka wadaan waad joojinaysaa waaye dabeedna maxay yeelan gabadhii waxay yiraahdeen annagu kuma aan soo talagelin kambanigan waxaa iska leh dawladda fan ma bixinno iyo lacag laaluusha ceelkaa wixii ku baxa yaa anagu estimationkeeyo waxa budgetka iyagu waa wixii ceelka ku bixi lahaa marka batroolkii dhammaa ee 4,000 ee mitir la soconaya waxaa idinka dhiman 45 mitir waliba inuu nagu soo boqdo aad bay halis u tahay marka iyada sababtu waxa weeye waxaa yimi nimanka qarxiya ceelasha batroolka marka la qodo kambaniga qodaa marka uu meel marayo waxaa yimaada kuwii qarxinaya marka la ogaado in ay 100% uu batrool ku jiro waxaa yimaada dad la yiraahdo fellow petrol iyaga ceelka markaa qarxiya iyaga sheega inta uu maalinta soo saaray batroolku nooca uu yahay inta sanadood ee uu productionka inta la eg samayn karayo nimanka sheega oo fellow petrol loo jiray way keensadeen qalabkoodii oo qaali ah oo habeen haday u hoydaan meesha aan kambariyadu xamelin way yimaadeen inay ceelka qarxiyaan oo production la bilaabo nasiib darro joojiya nalagu yiri amar baa nalagu sii halkaa markay maraysay Holland waxay gala soo hadlay nin madax ah oo executive secretary-ga Shell Holland wuxuu ugu yiri waxaad ku tiraahdaa ninka company manka ee meesha jooga labada telefoon waxa horeeyay kaninka madaxda ee Holland iga soo diray ayaa soo horeeyay wuxuu ugu yiri waxaad ku tiraahdaa ceelka waxa loo bixinayaa Vortex 1 in Africa baadheer 1 lama yiraahdo buu yiri Vortex 1 baa la yiraahdaa Vortex 1 sida aan taariikhda ku hayay wuxuu ku yaalay badda North Sea ee Scotland waa ceel aad u badiya
oo batroolkiisu aad u badan yahay marka Vortex 1 baa lagu mataaneeyay oo Scottishku ay leeyihiin marka taa waxa loola jeedaa sida ceelka Vortex 1 ee Scotland ka dhisani uu shidaalka u soo burqado shidaalka soo badan yahay ayaa kan baar dheeran u badan yahay waaye ka soco in Africa ba leeyahay waaye Vortex 1 telefoonka lagu soo sheegay telefoonku igu soo sheegay waaye anna waxaan ugu sheegay ninkii company maaka waxaan ugu sheegay isagoo site-ka jooga waxaan ugu sheegay walkie talkie radio okay intaas markay dhacday muqdisho laga soo hadlay waxa la igu yiri operation-ka joojiya drilling-ka joojiya una diyaar garooba geedi yaa meesha soo kacdaan amarka ayaa ku siiyay wasiirka miyaa mise cid kale kula soo hadashay maya waa sheel gudaheeda sheel baa lagu siiyay amarka waxa lagu siiyay muqdisho marka sheeshii muqdisho idinka baa anaga noo soo gudbisay maxaa ku xigay intaa waxa ku xigay wasiirku warqadii uu u qoray idinka iyo sheekooyinkii dhex maray iyo lacag yar oo la siiyay sidibkeedii iyo wixii information ahaa iyo tuu ku joojiyay operation-ka waxa ay soo diray gabar secretariat u ahayd ninkii wakiilka sheel uga ahaa Soomaaliya dabeedna warqadahaasi dawladda ayay dib ugu noqdeen isla mar ahaanta ninkii wasiirka ahaa waa la eriyey muddo bilka yar gudaheed ayaa lagu eriyey markii la ogaaday inuu dembiga intaa leeg dalka ka galay markii la eriyey idinku ma ka guurteen waaye ka guurnay kambanigiina teg waaye marka wixii waa isla dhinteen wasiirkii shaqadii baa laga saaray kambanigiina meeshii buu faraha ka qaaday waaye ka gudub baar dheere gaaska meesha petroolka ku jira baa rabaa in yar in dadweynaha u iftiimisid percentage-ka intuu ahaa boqolkiiba rajada qabteen inuu soo baxo petroolkaasi adigu ii sheegay 45 mitir oo qura inaad u jirteen iyo nooca petroolka bal hadda in yar igu noqo maxaa la ku sheegay aliyow petroolku ilaa uu soo baxo noociisa lama sheego oo lama garan karo nimankii sheegi lahaa laakiin way joogeen way inta marka loo gaaro ceelkuna halis wuxuu u yahay in uu qarxo marka wixii la saari jiray ceel petrol ku jira oo petrolka celin jiray petrolku wuxuu badan yahay ila cidima soo jiiday isaga soo booda wixii celin jiray petrolkana waa la saaray oo lagu xiray waa la xiray marka tagaysan may intaan xilib aan qodista aan ka samrin si aan ku soo burqan si uu san ugu soo burqan waan gartay rajadiisuna waxay ahayd boqolkiiba boqol ayay ahayd waa hagaag ceelka baar dheere intaan kaga gudubno maxaa idin xigay xagee tagteen ceelka baar dheere markii aanu ka gudubnay oo ay sheel tagtay waxaa imanaysay Konoko anigu intii u dhaxaysay Konoko iyo sheel waxaa la shaqaynayay company survey oo lagu wareejiyay ilaan shell inay abdaba igu celiso iyo in aan dhulkayga joogo oo kambaniyada Mareykanka u shaqeeyo waxaan door biday anigu inaan Soomaaliya joogo oo aan ogaado topigan isaga marka company loo jiray Western Geophysical ayaa lagu wareejiyay oo isagu laakiin survey ah isaga qudadiisa xoga badan baan ka ogaaday dhulka ay ugu rajo weyn yihiin koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga Soomaaliya laba tiim bay ahaayeen oo qolana dhulka Nugaal Valley la yiraahdo ayay baarayeen qolana Xamar iyo Jawhar iyo ilaa Kismaayo inta u dhaxaysa iyo Baydhaba intaasay baarayeen marka kuwa koonfureed baa ka sheegtay Konoko aan u shaqeynaya la yiraahdo Western Geophysical aniga cali ahaan aragtidayda markii ugu dambeysay waxaan ku arkay meel u dhow Sanajiif wakaha oo iyaga baaray Nugaal ha marka isla company-ga saabsan company way 773 iyo 778 bal kala oran jiray waa isku company oo hal manager bay lahaayeen Muqdisho fadhiya iyagu marka surveying ku xasa qaabsan iyagu surveyga qaabsan sahanka qaabsan wakaha way qolada marka uu tagtay marka xagee ka bilowdan hawshii waxaan ka bilownay Jawhar iyo Mahaday way ilaa waxaan soconnay meel la yiraahdo Jamxaad oo Kismaayo
area baraawe ka shaysa baraawe iyo Kismaayo u dhaxaysa ilaa halkaasaan soconnay marka waa meeshii markii ugu dambeysay dhulkii la calaamadiyay anagoo u guurno degnayo ceelkii ka qodi lahayn uu dalku burburayba marka ceelka aad tagteen meesha Jowhar iyo Mahada ilaa Baraawo iyo Kismaayo meesha iska galaan ilaa xeebta weey ilaa xeebta marka sahanka dhinaca xeebta ka sameeyeen xeebta iyo ilaa Baydhabo wixii ka sokeeyay leego meeshii loo oran jiray dhulkan qoryoolay iyo daafeed waxa soo dhan waan wada mar maxaa idin soo baxay marka lama ogaan karo waa report ay iyagu waa survey waxa ma sheego laakiin waxaad ku ogaanaysaa koorin bay sameeyaan wax la yiraahdo waxay daloolinayaan ilaa 1,000 mitir dhulka waxay ka soo goynayaan hilbo hadhow ceelka waxa lagu estimate gareynayaa ciida marka la qaaday ee lagu sameeyo la analyze gareeyo ba hadhow ceelka rajadiisu waxay ku qoran tahay 65 boqolkiiba marka sida meeshii la oran jiray waxa la yiraahdaa sida dhul u dhow Sablaale iyo Kurtuwaare oo meesha magaceedu maxabiis baa ku xidhan jirtay dhul badan oo ay calaamadiyeen ceelkii oo ay markay birgeliyaan canda Juma iyo Sablaale iyo Kurtuwaare ceelka marka ay intay number u sameeyaan birgeliyaan waa rajadiisu waa ab way sareysaa haddii kale way iska dhaafaan laakiin hadday intay sibid ku shubaan oo birgeliyaan oo number u sameeyaan waa rajadiisu wax weeye waxay ka bilaabaysaa wixii 60 ka sareeya ceel aan ka ahayn baar dheere oo aad qodeen ma jira waad ka qayb gashay caliyow Soomaaliya waxaa laga qoday 5 ceel waxaa ka horeeyay 2 ceel oo anigu aanan arkin oo joogin ceelna Kismaayo area laga qoday 72 meelaha 73 ceelna gaas buu ahaayo afgooyaa laga qoday labada ceel maanan ogeyn laakiin 5 kale waan ogaa ii sheeg hadda 5 kale mid waa baar dheere ceelka baar dheere hol kaliswan oo garoowe 16 kilomitir u jira soo 3 ma 3 ceelkii Lughaya laga qodayay ee ay Chevron qodaysay iyo ceelkii aan Mudul Baraawe ka qodnay shataba ceelka Lughaya runtii wax badan ma aanan joogin waayo dagaal baa markiiba nagu qabsaday markiiba waa nalaga qaxiyay aniga iyo gaaladii laakiin rajadiisaan ogaa oo waxay ahayd 95% 95% Kalughaya waatay ceelka hol kuwajin male oo u buuxa gaaladu horta waxay samaysaa waa dafi mirq cali waxaan doonayaa inaan ku yara iftiimiyo ceel moqor ah oo afka la qoday batrool ku jira ma jiro dunida oil field baa jira area jirta area waxay ku sameeyaan wax la yiraahdo injection 4 meelood oo isku toosan ayaa laga qodaa 4 ceel markay ugu horeeyeen ka saliidda ku arkaan way markaa way weeraraan oo area soo dhan waxay ogaanayaan ilaa inta ay leeg tahay inta area oil field marka hol waa tif weeye ceelka garoowe wax yar markii aanu qodnay oo 2500 feet oo wax yar oo aan weligayba arkin ceel saasa waxaanu galay saliid yaacday oo dhimatay ma ay jeclaysan gaaladii markaanu aragnay dead oil ma ay jeclaysan marka waxaa lagu ogaan kari lahaa haddii ceelka Sinujiif oo isaga ku toosan oo ay siman yihiin haddii la qodi lahaa baa waxaa la ogaan lahaa areada in badal ku jiro iyo ku jirin laakiin si daro
markii loo guuray oo qalabkii qayb la geeyey konoko waxbaa ku dhacay dalka shanta caalamka aad sheegtay rajadoodu markaynu average markaynu sameeyno aan average ka sameeyno ma waxay noqon karayaan 80% mise 90% in shidaal uu ka buuxo shanta ceel laba ceel waa 100%. way ceel waa 95 waa 85 to 95% oo ceelka lagu haya ceelka garowe waan ka weyn saliid way ka dhinac meel bay ka aadi ceelka mudul baraawe daray hool buuxa sayn kuma ana arag saliideedba intii loogu talagalay markii la qoday wuxuu noqday daray hool way inagu waqtiga ka faa'iideysana abukar shanta caalamka aad tilmaantay bari ka maalin hadaynu labadana waa israacno meelihii ay ku yiileen ceelashaasi ma egeyn kartaa ma oran kartaa ceelkii hebelan ka sheekeynay holol waa kan ceelkii baar dheer waa kan ceelkii sunu chief waa kan kii lughayo waa kan hadii wax ma ka garanahay dhulkii hadii calow la yiraahdo gudcur maar rawle ina mari ceel walba ama lug aan ku tago ama gaadid ku tageen in ku dul taagaya حتى هذان افتين شرين حتى هذان افتين شرين ودولا سفعان وقرنس ودولا سفعان وقرنس كمبنيه دي قضي ما دبولين ما دهارين نمبر ما ku qoreen wax calaamado aad ii sheegi karto waxa calaamad bay leedahay oo aad ku garanaysaa miyaa jirta ceelkii wax lagu arkay oo batrool ku jirayna bir weyn baa la geliyay oo la yiraahdo waxa la yiraahdo oil head oo laakiin aan muuqanayn in yarba ka soo muuqanaysa sida ceelka baad dheere gaaladu caradii markii ay xanaaqeen wax yar bay ciidda saa ku yidhaahdeen chemicalkii meesha yilay chemicalkuna waa waxyaabaha kambaniyada xunxumi ay ku baabi'iyaan dunida saddexaad oo dad iyo dunyaba halis u ah anigii gaaladii markaa waanu isqabsanay oo 3 maalmood oo dambe ayaanu dib u dhacanay xilligii loogu talagalay inaanu tagno ilaa ceelka aad loo aaso marka ceelasha ceelka holhol isaga sidiisa u dumay oo waxba kama soo baxaynin ugu dumay dabadna waa la sibdiyay birtina waa laga taagay way waxaan rabaa su'aal kale inaan kaa weydiiyo markii aad company-ga xafiiska joogtay informationka communication kabadhe isgaarsiinta iyo xogta markaad fadhiday dadka aad la shaqaynaysan company-yada Shell ama kuwa kale ha noqdaane adiga ka sarkaal ahaan ka khabiir ahaan ma ku oran jireen xogta iyo informationka ceelashan aynu qodayno ma gudbin kartid bas waad madax banaaneedno waxa rabtaan ba sheegay ma caliyow halka hortaada markaad control roomka lagu soo fadhiisiyo iyadoo kobara bay waxay ku qoran tahay no information given out wax war aad bixin kartid ma jirto waxa dhacday ceelka baar dheere ninkii geologist ahaa Dutchka ahaa xogaa sheekana dhex martay waxaan u sheegay ceelka in badrool ku jiro isagaana geologist moogta maxaad ku garanaysaa uu waxbaan u sheegay subaxay dab uu yimi reportkii wuxuu igu keenay oo af Dutch ku qoran dabeedna ninkii company man ka tusay oo yiri anigu ma Dutch baan ahay mise waxaan qori karaa afka Dutchka way ninkii shaqadii waa laga geeriyay sidii ninkii geologist ahaa wuxuu jeeday marka afka Dutchka waxaan ku qoran you fahmin reportka geological reportka you fahmin ninka information ka hel uu ninkan waxbuu yaqaanay you fahmin oo wuxuu sheegay way su'aal kale waxa oranaysaa abakaro kambaniyada batroolka ka qodayay Soomaaliya xilliyada adiguna aad u shaqeynaysay muddaacad bay ka hayeen shidaal Soomaaliya u soo saaraan mise ag bay ku hayeen oo inaan waxba u soo bixin bay doonayeen oo hawraartii ahayd nin baa jira baadida kula raadiya inaad heshan aan rabin oo kale ayay ka ahayd mise dawladda xilliga jirtay ayaan idin la shaqeynayno aanay ka daacadahayn in shidaal soo baxo maxaa shidaalka loo soo saari waayay si degdeg good question su'aal waxaan baad weydiisay historyga hadii dib loo raaco caliyow 50 sanadood oo ka horeeyay xilliyada qodaalkan la bilaabay ayaa survey dhulkeena lagu sameeyay waxa ku jiraan la ogaa
kambaniyada batroolkuna ajenda u degsanoo xilliba 50 sannadood ama 100 sannadoodba dal bay waxa ku jira la soo baxaan inaga 1980 baa waxa bislaatay dhulkeena batrool laga soo saaro way u bislaatay daacad bay ka ahayd kambaniyadii yimi waayo kambani waliba wuxuu keensaday qalabkii production-ka diyaar bay ahaayeen on the other hand kambaniyada batroolku laftigoodu waa siyaasiyiin dawladdii dalka haysatay ee maxamed siyaad bare madaxweynaha ka ahaa allah u naxariistee wax allaale wax ay ka diiday ma jirin laakiin kalsooni may qabinoo batroolka inay soo saaraanna way rabeen waxna way isla eeganayeenoo dalka mogtahay in odaygu baawarka ka wareegana way alsaaxad bay u hayeenoo way baxnaaninayeen wax ay ka diiday laakiin dawladdu may jirin Soomaalidu waxay ku sheekaysataa konton qaatuu yidhi konton qaadaa la yidhi kanaa la yidhi maxamed siyaad baraa diiday waxaa wax ka jiray ma jirin shirkaduna diyaar bay ahaayeen dawladduna diyaar bay ahayd dadka Soomaalida marka mawduucan laga hadlayo shidaalka Soomaaliya ku jira oo kale waxay u badan yihiin majority-goodu in ay qaataan dhinaca negative oo ay yidhaahdaan waxba kama jiraan maxaa dadka Soomaalida caloliyowga ku abuuray iyo inay dhinaca negative ka qaataan oo yidhaahdaan wax meesha ka jira ma jiraan arrin siyaasadeed baa ahayd mise dadka Soomaalidu ba iska sawirtay inaan meesha wax ku jirin laba wax baa isbarkanoo caliyow dadka Soomaaliyeedna dad cilmi leh ma ahayn oo xitaa cilmi bay yarahaan dad advanced ah oo xadaarad leh ma ahayn cidina way shaqaynaysay niyadda ka dilaysa oo indhaha qabanaysa oo dadkani in ayan waxba ogaan ka shaqaynaysay baa jirtay wuu ku jiraado maanta oo dhan socodsiin kari maysid dad cali oo tiraahday dhulkeena batrool baa ku jira ka dhaadhicin kari maysid waliba way kula asraartamayaan laakiin haddii la yidhi waxba kuma jiraan way qaadanayaan dadkii waayahay abubakar waxaa jirta dadka Soomaaliyeed in badan bay dhinaca inay Soomaaliya cageeda ku istaagto dagaal sokeeyo in badan aafeeyay ka bacdi aanay rumaysanin in Soomaaliya mar kale ay soo noqon karto ay adduunyada la talaabsan karto oo horumar iyo dhinacyo badan waxbarashada iyo caafimaadka iyo technology cusub ay la talaabsan karto ama ay hiigsan karto waxaan rabaa maanta inaan bushaarada ugu muhiimsan ee imika adigu aad haysiday in gaas fiican iyo batrool fiican uu Soomaaliya ku jiro xilliga ay suurtagal tahayna lala soo bixi karo in aad dadweynaha u gudbisid oo rajadaasi quruxda badan maanta ay bal la kowsadaan iyagoo in badan ku jiray in bilaa rajo dhinac walba dhinaca siyaasadeed dhinaca dhaqaale dhinaca horumarineed ay inta badan la kulmaan markii imika aad ka hadlaysay mawduucaasi batroolka Soomaaliya ku jiro ceelasha Soomaaliya laga helay iyo markaan isu qaybiyay populationka Soomaaliya ama tirada dadka Soomaalida warbixinaha caalamka markaan ku daro oo tilmaamo 110 bilyan oo foosto in ay Soomaaliya ku jirto ceegaagan tahay Soomaaliyana 10 milyan ilaa 15 milyan oo qof laga dhigo dadka meesha jooga waxa qiyaas soo bixi karta haddii dadka 18 jir wixii ka weyn da'dooda inay heli karayaan sanadkiiba $100,000 Mareykanka haddii si cadaalad iyo xaq loogu qaybiyo anoon qodobkaasi ka hor dhacayn taladaada ummadda Soomaaliyeed aynu barnaamijkan soo gabagabeynay maxaad u soo jeedin lahayd oo rajada shidaalka ku saabsan tafadal waxa weeye runtii waxay agta la gelaysaa arrin siyaasadeed laakiin shacabku inuu wixii uu ogaanayo siyaasadeeyo maaha waxa weeye wixii uusan ogeyn ee uu ogaado ee uu isagu leeyahay inuu ku mintido oo uu ku khasbo xitaa ciddii markaa hoggaan u ah ama liider u ah in ay awoodda saaraan dadkaas horta shacabka baa iska leh laakiin anigu waxaan ku odhan lahaa ummadda Soomaalida gobollada sida gobollada mudug oo kale gaaladu marka ay ka sheekaysanayaan anigu iyadoo luqadayana maan arkin
bugaagna kumaan arkin laakiin gaaladu markay ka sheekaysanayaan waxaa jira buug weyn oo la yidhaahdo IADC buugga waa buuggan wax ku qori jiray meel kastoo aan joogay waxaa lagu qoraa ceelasha la qodayo riboodkooda waxaa ku sawiran meeshii batrool ku jiro ama macdan ku jirto iyo magaceedii baa ku qoran galmudug dhulka la yidhaahdo oo dhan waa uranium bari markaad halkaa u dhaqaaqdid ufayn iyo baargaal iyo xagga dharoor iyo barigaasha markaad tagtid waxaa ku wada yaalla bartii casayd oo saa ugu goobaaban oo waa ku jiraa nugaal faali ilaa meesha la yidhaahdo buraan saasaa iyadoo gooba ay ku taalaa bartii casayd iyo calaamadii dhinaca badda waxba ma laydku sheegay in gaaska badda laga wado waxaan anigu ogahay oo aan 3 bilood la socday laamo iyo muqdisho inta u dhaxaysa 3 bilood marka Western Geophysical shaqaynayay qayb iyaga kamid ah oo laakiin magac kale sidata oo badda baadho oo Bacton baa la oran jiray shirkadda Bacton baa la oran jiray 3 bilood baan la socday markab saarnaa وايه يعني عقلigaaga askeen kari maayeen markaas rajada ay meesha ka muujiyeen iyo boorda ay ka qoreen badda ta ku jirta baddaas anoo ka raacay berbera dayuurad waxaan arki jiray riig aan ka fogeyn berbera oo badda qodanaya shaqaalihiisuna uusan Soomaaliya joogin taariikhdiisa historygiisa iyo kontraadkiisuna uusan Soomaaliya gacanta ugu jirin Djibouti baa laga iman jiray marka wax badan oo kama hayo practical oo aan sheego xog ah وهاك أدياد أياد محسن تهي كاسنا وحوها داوديال أبوكر حاجي محمود مره أو يسوها خبير أما بالسركال لنا حفيز كحكت يسكارسين تقابل سنة شركة هي أما كمبنية دي لنا شيدال كقوديس تودا يقول بس سهمين تودا با وشوي ودن كالصوماليا قارهانا waxa uu marka hore ka soo bilaabay 1978 sidii hore baan ku sheegay shirkad lagu magacaabi jiray Halliburton oo Mareykan ahayd oo markaas shidaal ka baarisay wadanka Kuwait intii ka dambeysay ahayd 1978 ilaa 1986 waxa uu joogay wadanka Imaaraadka Carabta magaalada Abu Dhabi oo Sabata North Sea Inc company la markaas u shaqeynayay isla Abubakar weeyaan 1986 waxa uu yimid ceelka baar dheere oo markaasi rajo wanaagsan laga muujiyay in shidaal soo bixi karo hase yeeshee sida aad waraysigiisaba ka dhanaysanayeen khilaaf dartii markaasi loo baajiyay tan iyo kulankeena dambe daawadayaal waraysi kan oo kala ah intaynu dib ugu kulmi doono waa Cali Xaraare oo dhamaantiin bay idinkaga tagay sida ayuu nabad geliyo aad iyo aad baad mahadsantahay Abubakar aad baad mahadsantahay thank you very much waqtiga aad nasiisay iyo sida wanaagsan ee faahfaahinta leh ee aad ummadda Soomaaliyeed ugu soo gudbinaysid in rajo wanaagsan dhinaca shidaalka aad baan ugu faraxsanahay inaan inta aan ogaa Soomaali gaarsiiyo aad baan